السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامتين دمان أصحاب كحرن سمسو channel كسر بهذا فيديو عصب إن شاء الله فيديو جن ما أنتوا حنا خدنا فيديو أو مارتي أو أديات مهم فيديو جن وحنا خدنا موضوع فيديو جن وحنا خدنا سيدا تراست والت أما سيدا كريبتو كارنسي سيدا لو مال قشطة أما ها هاتو تراست والت أما ها هاتو باينانس أوكي so فضلا هدي أتى خف وصب channelك waxaan ka codsanaynaa inaad saad subscribe إن شاء الله maartii marka hore waxaan ku bilaabeynaa trust wallet horta trust wallet iyo maartii Binance ama Binance waxay ku kala duwan yihiin Binance waxaad ku sameyn kartaa trading okay waad ku trade garay kartaa staking ayaad ku sameyn kartaa laakiin markii oo ay wax imaado trust wallet waxa way marka trust wallet waxa way lacagtaada oo kaliya maartay holding oo kaliya macnaha lacagtaada inay macnaha meeshaas ay kugu jirto ama lacag lagu soo diro ama maartay lacag aad dirtid okay waa intaas oo kaliya so hadii oo aan ku hormarno maartay Binance markii aad furtid Binance marka hore shuruudaha ugu horeeya Binance waxa way waa inaad isdiiwaan gelisaa si uu kugu noqdo verified waxa laga baahan yahay qofka waxa loo baahan yahay in uu haysto passport okay waa inuu qofka haystaa passport waa inaad gelisaa nationality-gaaga iyo everything iyo macnaha lambarkaaga iyo maarto wax walbo waa in aad gelisaa okay so mid kale oo markaas aad muhiim ah ayaa maartay waxay tahay tusaale markii aad dhahdid log out aad dhahdid hadana macnaha login aad dhahdid maartay wuxuu ku weydiinayaa code number oo ku hodirayo ama telephone numberkaaga so marka waxa fududa marka way sahlan tahay in account-kaaga laga jabsado okay markii macnaha code number oo lagu hodirayo sim card-kaaga okay so marka waxa sameysaa fadlan waxaad isticmaashaa application loo yaqaano authenticator okay Google authenticator ama authenticator caadi kaliya waxaad tagtaa maartay app store ka tag application-kan soo deg mar walbo oo aad gelisid tusaale hadii maartay aad geshid sida maartay Binance-gaaga wuxuu ku hodiraa maartay code number tusaale waa kana code number-ka Binance waxa way hadda maartay waxa way waa kan hadii uu wareegan dhamaado uu isbedelaa okay so marka waxa way markii aad dhahdid login aad dhahdid maartay waxaad sameynaysaa lamarkan ayaad soo koobi galinaysaa kadib waxaad ku soo laabanaysaa Binance-gaaga kadib maartay secure ahaan ma fahantii waxa aan ka hadlayo waa secure okay waa inaad u sameystaa waa aad iyo aad ayuu muhiim u yahay okay trust wallet Binance marka hore sidee lacag loogu shubtaa markii oo sidan uu yahay maartay tusaale waxa ku soo qabanaa waa qaabkan oo kale okay marka hore waa qaabkan okay markii aad isdiiwaangeliso wuxuu ku sinaa qaabkan saddex option ayuu leeyahay waa option-kan iyo kan oo dhexda iyo midka geeska okay midkan geeska qaybtan geeska midig wuxuu ku tusinayaa caadi cryptocurrency kulli maartay qiimaha uu marayo iyo everything maartay ku tusinayaa list ahaan okay qaybta dhexe oo salaawnayna qaybta kale oo geeska maartay waa qaybtan lacagta oo adiga oo aad kaga shubanaysto okay tusaale waxa rabtaa in lacag oo lagu soo diro BNB aad rabtaa in lagu soo diro ama waxaad rabtaa inaad geeytid sida Shiba Inu waxa rabtaa inaad geeytid any cryptocurrency okay so marka hore loo baahan yahay inaad haystid USDT waa inaad haystaa si USDT aad lacag ahaan lagu soo diro waxaad ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay deposit okay markii aad dhahdid deposit waxaad imaanaysaa waxaad arkaysaa laba option oo ah fiat iyo waxaad arkaysaa crypto meesha ay ku dhufo then kadib qaybta kor oo search-ga maartay USDT ku dhufo markii aad dhahdid USDT aad dhahdid waxay ku xiran tahay qofka lacagta ku sarifayo okay sarifla ayaa jiro ayaad dhehaysaa maartay walaal waxaan rabaa in aan cryptocurrency aan iibsado qof markaas aamin taxadirkana maartay hala muujiyo dad waxa jira oo tuuga ah soo marka qofka aad ka iibsanaysid crypto-gaaga waa inuu ahaadaa qof oo aad hubtid
ama aad kalsooni ku qabtid ama aad taqaanid. Okay qofka marka wuxuu ku leeyahay tusaale waxaad rabtaa soo maahan pep 20 ama wax noocaas ah oo baahantay soo ma qofka marka maaragtay qofka wuxuu ku leeyahay TRC soo dir qora. Okay tusaale markii aad halkan joogto maaragtay USDT maaragtay markii aad ku rufid maaragtay qofka wuxuu ku leeyahay waxaan u baahanahay tusaale maaragtay haddii uu qofka ku dhaho waxaan u baahanahay pep 20 ismaajin ku dhufo qaybtan kadib maad address-kan maaragtay c. Okay address-kaaga waa kana waa midkan. Okay haddii kan oo uu ka khaldamo lacagtaada waxay ku dhacaysaa meel khaldan. haddii uu qofka ku dhaho walaal maaragtay TRC 20 ii soo dir oo maaragtay USDT ah kadib waxaad siinaysaa ciwaanka hoos ayaad siinaysaa. waxay ku xirantahay qofka lacagta oo ku soo diraayo. kadib markii uu qofka markii lacagta ay siisid maaragtay uu maaragtay dollarka ay siisid address-kaagan ay siisid lacagtaada waxay kugu dhacaysaa halkan ayay kugu soo dhacaysaa. Okay markii aad rabtid inaad macnaha lacagtaada aad baxsidne waxa waaye waa qaybta withdraw tusaale haddii aan dhaho withdraw oo aan dhaho kadib waxaan leeyahay crypto ayaan leeyahay kadib ana hadda oo kaliya waxaan haystaa shiba inu kadib waxaan leeyahay kadib intan waa. Okay marka shiba inu kaliya wuxuu u diri karaa shiba inu. Okay marka qofkaas oo qofka oo aragtid inaad macnaha lacagta oo aad u dirtid maaragtay ayaad leedahay macnaha address-kaaga si halkan waxaad gelinaysaa maaragtay amount aad gelinaysaa halkan waxaad gelinaysaa type-ka uu yahay ma fahamtid. soo marka haddii uu yahay ERC TRC wax noocaas oo kale waaye waa qaabkaas gas fee kadib waxaad leedahay maaragtay withdraw ayaad leedahay qaybta hoosna waxa waaye gas fee waxaa laga yaabaa inuu ka qaado $1 ayaa laga yaabaa inuu ka qaado markii lacagta adiga aad diraysid $1 ayaa ka bixayso markii lacagta lagu soo diraayo maaragtay oo macnaha lacagta laga soo diraayo BNB oo macnaha sorry Binance wallet qofkaas waxaa ka bixayso $1. Okay waa qaabkaas haddii aan gudgalo qaybta dhexe tusaale lacagta waxaa lagu soo diri tusaale lacag waxaa lagu soo diri oo USDT lacagta ayaad rabtaa inaad bedeshid. Okay waxaad tagaysaa qaybta oo ay ku qoran tahay convert ayaad tagaysaa ku dhufo convert meesha kadib waxaad tagaysaa qaybta kore tusaale lacagta lagu soo diri waa USDT ama Bitcoin ama wuxuu rabo ahaado. Okay from USDT to waxaad gelinaysaa lacagta adiga aad rabtid tusaale USDT waxaan rabaa inaan u bedelo Ethereum. Okay markii aad rabtid in Ethereum aad u bedeshid kor ayuu wuxuu kugu soo qoraa qiimaha ugu yar ee aad bedeli kartid waa $20. Okay qiimaha ugu badan waa 25 waa $250 Soomaan kuwa 3 4 5 6. Okay marka waa qaabkaas kadib waxaa ku soo dhacayso lacagta caadiga markii la kas qaybtaan waxa lacaga kaama bixayso isbedelkaas markaas dhacay maaragtay wax lacag lagama jaranayo. Okay waad fahanteen ayaad filaa qaybtan kale inaa ku si dheeraad marabo trade-kii macnaha waxyaabahaas oo kale inaa maaragtay inaa ka hadlo marabo kaliya waxaan rabaa inaan sheekeeyo deposit. Okay haddii aadan fahmin fadlan Telegram-ka linkii qaybta hoos yaal fadlan join ila soo xiriir insha Allah maaragtay waa idin caawin doonaa insha Allah. Okay haddii aan imaano tusaale haddii aan imaano maaragtay trust wallet. Okay trust wallet haddii aan imaano trust wallet-ka waxaad markii aad application-ka oo aad soo degtid trust wallet kaagama baahno email iyo gmail iyo security iyo wax noocaas maaragtay kaagama baahno. Okay fadlan waxaad sameysaa maaragtay waxaa jiro 12 eray ayaa jiro 12daas eray security-kaaga waaye xitaa haddii mobilkaaga uu ka hadlamo ama haddii uu ka dhaco wallet-kaaga lacagta oo kugu jirto way ku soo laabanaysaa. fadlan 12daas eray meesha oo ay ku qoran tahay waa taqaantiin fadlan taga maaragtay ama book ku qorta ama meel on halugu qorto. Okay yaanan la yasin waayo waxaan waa device wax walbo ka filo inuu damo wax walbo ka filo. Okay so mar haddii lacag ay kugu jirto trust wallet fadlan waxaa sameysaa maaragtay eraygaas meel ku qorta. Okay sidee lacag loo deposit gareeyaa. Okay tusaale waxaad rabtaa in aad deposit gareysid kasoo qabo
waxaan leeyahay bitcoin oo kale sida qaabkaas oo kale waxay ku xiran tahay qofka lacagta oo kugu diraya. Okay, qofka lacagta oo kugu diraya waxaa leedahay warniyahow waxaan rabaa USDT ama BNB ayaan rabaa leedahay. Okay, tusaale qofka maarta waxaa rabtaa BNB. Okay, warniyahow waxaa leedahay waxaan rabaa BNB. Okay, qofka wuxuu ku leeyahay BNB ama PEP20 soo dirso ay ku dhaca qofka ma fahanti macnaha PEP20 address-ka ay sii waa kana BNB aan jooga halkan receive waa kana receive waa qaybtan waa marka lacagta adiga lagu soo dirayo. Okay, receive ayaad leedahay address-kan ayaad code galinaysaa qof lacag oo kugu diray aad siinaysaa. Okay, address-kan ayuu kugu diraya. haddii aad rabtid in aan lacag aan kuu sarifo xitaa waad ila soo xiriiri kartaa waan ka caawinaa insha Allah qiimo jaban insha Allah. Okay, qaybtan kale haddii aad lacag adiga address way. Okay, qaybtan qaybta kor waxaa gelinaysaa waa inuu ahaada BNB. Okay, BNB wuxuu lacag u diri karaa BNB. Okay, qaabkaas waay tusaale haddii hadda oo aan dhaho tusaale ama tusaale haddii aan dhaho hadda bitcoin oo kale maartay bitcoin oo kale haddii addresskiisa aan copy dhaho oo aan halkan imaado maartay tusaale waa in tusnaya oo aan send dhaho oo aan pass dhaho oo aan amount ay geliyo. Okay, nida وديدا. Okay, وديدا address wuxuu leeyahay addresska macnaha macquul ma. Okay, so marka waxa waaye maartay waa qaabkaas qofka adiga oo aad ka iibinaysid oo ka iibinay cryptocurrency ay ku xiran tahay. Okay, markii aad dhahdid bitcoin ayaan rabaa asiga ayaa kuu sheegi doona asiga ayaa ku haygi doona. Okay, qaabkaas waaye. Okay, waa qaabkaas. Okay, mid kale maartay waxaa jirto lacag waxaa jiraan oo marka tusaale waxaad rabtaa inaad geeytid Dogecoin ama waxaad rabtaa inaad geeytid crypto kale ma fahanti. So waxaad hubisaa marka hore mar walba inay macna BNB in lacag ay kugu jirto. Okay, tusaale hadda BNB waa coin. Okay, BNB lacag waxaa loo hodi karaa BNB. Okay, laakiin markii oo fiiri Baby Doge BNB ma aha laakiin wuxuu hoos imaadaa PEP20 uu hoos imaado. Okay, it means waxa waaye wuxuu ku hoos dhisan yahay under PEP20. So marka sidee loo iibsadaa tusaale simple waxaa sameynaysaa qaybtan oo ay ku qoran tahay D-apps maartay oo ay ku qoran tahay D-apps ku dhufo kadib waxaad tagaysaa kadib waxaad qoraysaa pancake swap. Okay, magaca BNB. Okay, pancake swap. Okay, .finance ayaan ku ayaa tagaysaa smart maartay qaybtan kore oo maartay Ethereum maartay calaamadaas bedel waxaa ka dhigtaa maartay Binance ka dhig kadib waxaa leedahay connect meesha ay ku qoran tahay connect wallet markii aad dhahayd qaabkan ayuu ku soo qoraa trade meesha maartay hoos halkan trade meesha ku dhufo kadib waxaad sameysaa tusaale waxaad rabtaa maartay haddii tusaale waxaad rabtaa inaad iibsatid maartay ama Baby Doge sida hadda aan sheego halkan ayaad waxaad leedahay Baby Doge coin ku qor. Okay, Baby Doge coin tusaale ku jiro. Okay, ku jiro maxaa sameynaa marka waa soo bixaysaa waxaad imaanaysaa Google ma caadi si aad Baby Doge coin oo aad u heshid addresska waxaad halkan ku qoraysaa coin market ku dhufo. Okay, coin market card gal markii aad gashid crypto walba wuxuu leeyahay address oo gooni ayuu leeyahay. Okay, so marka waxaa jiro kuwa oo double leh ayaa jiro. So marka si aad addresska saxda u soo qaad maartay halkan ma. Okay, halkan ma kadib waxaad ku qoraysaa halkan coin-ka adiga aad rabtid inaad macnaha aad gadatid. tusaale waxaan rabaa inaan gato Baby Doge markii aan imaado Baby Doge markaan aan arko markii aan ku qorahaa sorry kadib waxay soo baxay mida halkan contract address waatana waa kana waxa waaye markii aan ku dhufto tusaale kan waa under Ethereum oo ku dhufo meesha falaart meesha maartay ku dhufo falaart meesha ku dhufo marka waxaan rabaa midka hoos ma fahanti oo
oo BNB waayo ani lacagteeda waa BNB haddii lacagtaada ay tahay Ethereum maartay ay kugu jirto kan kor qaado haddii ay kugu jirto BNB qaado waayo waxaad rabtaa in aad ka dhex iibsatid BNB dhexdiis soo maahan soo marka BNB markii aan dhaho copy okay waxaan filaa inuu copy yahay Trust Wallet ayaan kusoo laabanayaa okay Trust Wallet markaas uu soo noqdo sorry ila noqdo okay marka waxaan rabaa tusaale BNB aan haystaa okay qaybta kor waxaan ku dhaafayaa BNB waxaan rabaa inaan iibsado Baby Doge okay waxaan ku dhufanayaa meesha ay ku qoran tahay qaybta hoos kadib waxaan ku qorayaa kor kadib waxaan leeyahay paste addresskii oo aan soo copyay ayaan paste ku dhahaa okay markii aan dhaho paste kadib halkaas waxaan arkayaa Baby Doge import ayaan leeyahay waan ku dhufanayaa kadib waxaan leeyahay understand kadib waxaan leeyahay import ayaan leeyahay kadib waxa waaye wuxuu soo qorayaa tusaale markii oo aan dhaho waxaan rabaa inaan gato 0.001 ayaan rabaa inaan iibsado tusaale ahaan okay kadib wuxuu leeyahay waxaad helaysaa intaan okay tirada oo aan helayo waa intaas okay kadib waxaan leeyahay swap markii aan ku dhufto swap kadib waxaan leeyahay confirm swap tusaale kadib wuxuu weydiinayaa gas fee ayuu weydiinayaa oo lacag oo adiga $1 okay sorry marka qaar halkan maartay wadida waxaa maartay gas okay gas fee inuu yahay macquul waaye waxaa sameynaysaa wado kale fudud ayaad galaysaa poocoin.app ayaan leeyahay ma aqaan qaybtaas uu ii diiday videoga inuu si dheeraad maro okay poocoin.app ayaan leeyahay markii aan maado poocoin.app kadib maartay Ethereum meesha waan bedelayaa waxaan ka dhigayaa sorry waxaan ka dhigayaa BNB kadib meesha ay ku qoran tahay trade ayaan ku dhufanayaa markii aan dhaho okay sorry markii aan ku dhufto trade waxaan gelinayaa qaybta kor Baby Doge coin meesha magaca oo ay qoran tahay okay waxa waaye waa BNB waxaan iska iibinayaa BNB waxaan iibsan rabaa Baby Doge coin okay address copy ayuu yahay Soomaan address kan paste leeyahay Baby Doge coin waa kana then kadib waxaan leeyahay tusaale waxaan rabaa inaan gato 0.001 kadib waxaan leeyahay swap meesha ay ku qoran tahay ayaan ku dhufanayaa kadib waxa ii soo baxayo waayo lacagteedu waxay u jirtaa BNB okay BNB ayaan rabaa in aan ka dhex iibsado okay kadib wuxuu leeyahay lacagta total laga rabo waxa waaye $2.57 okay waa intaas okay laakiin aniga marwa sorry waxa waaye lacag igu filan iguma jirto marka waa qaabkaas okay waa qaabkaas then kadib waxa kusoo dhacaya Baby Doge coin-ka ayaa kusoo dhacaya okay waa qaabkaas fadlan haddii aadan fahmin ila soo xiriir insha Allah maartay si personal ahaan maartay ayaan idin kugu sharxi doonaa insha Allah haddana السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.